maalin waad salaamaya meel kasta oo dunida joogtaanba waxaan idinka codsanayaa qof kastoo cajaladeeda dhegeysta saaxiibada dunida ku leenahay inay fariintan ila qaadaan oo ila gaarsiiyaan meeshaan ku wado oo ah Awdal State iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweyne Xasan Sheekh saddexda meelood baan ku wada adila qaadaan oo ila gaarsiisaan meelaha aan ugu talagalay oo baalasheedii noqotaan oo qof kasta oo furaaba uu ii sheer gareeyay si ay u gaadho waxaan rabaa inaan Awdal State u sheego saddex cisho ayaa ka hadhay in maamulkii Cirro maamulkii la qalibay ee Ilaahay haligay ee Muuse Qamuunyo waad ogtihiin halka uu idin gaarsiiyey maanta anigu ma filaayo wax ka badan intii inaad heleysaan ma filaayo haddii saba ay dhacdo oo laydin siiyo wax inan gumeed weel inan gumeed fijaan inan gumeed dhiil inan gumeed wax laydin gurido ha yeelina haddaad yeeshaan inan gumeed baan noqonaysaan waxaan sharaf iyo karaama ku jirin ha qaadanina waxaan adiga kuu qalmayn oo dadkaaga u qalmayn oo meeshaad ka timid u qalmayn oo sharaftaada iyo haybadaada u qalmayn ha qaadanina saddex reer baa ku hadhay Somaliland meesha la sheegayo oo iminka maamul beeleeda waxaan rajaynaynaa inay noqoto maamul la wada leeyahay laakiin iminka waa maamul beeleed waxay ku noqon kartaa maamul la wada leeyahay waa in loo qaybiyaa saddex reer ciise samaroon iyo isaaq loo qaybiyaa oo la kala sarraysi taas weeyaataan rajaynayna haddii la dhadaarood baa lagu soo daraya dhulbaante iyo warsangeli wax dhici kara maaha waayo kuma jiraan ninka dhulbaante amba warsangeli ee maamulka ku hadhay waa horgale waa house nigger sidiisa ha u ekaanina odaganaad moodo rican dhale ee baarlamaanka kolbadhan oo socda waa house nigger waa nin dadkiisii ka tegay reer baa isku qurxinaya waa addoon reer leeyahay house nigger wey inaad house nigger noqon baan idinka talinaya anigu haddii wax idin qalma la idin siini waayo ha qaadanina maamul baan samaysanaynaa Awdal State baan samaysanaynaa wax kastood u baahantiin ba halkaas ad ka helaysaa laakiin wax inan gumeednimaha soo qaadina dadkiinana ha u soo qaadina magaciinana hoos u dhigina maanta waxaad ka tihiin Rohingya reerka la yiraahdo ayaad ka hoostiin reerkan meesha haysta Rohingyanimo waad ka baxdeen saan rajeynaayo maanta maamul baad leedihiin maamulkiinaas ad ku dhawaaqanaysaan oo wax walba ka helaysaan waxaan ku adkaynayaa ragga ciise ee halkaa jooga ha ku yaacina kursi haddii laydinka siiyo iyo laba haddii laydinka siiyo ha ku yaacina waxaan idin qalmayn ha qaadanina ninkii qaata dayuus buu noqonaya ninka dadkiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo haybadiisa meel kaga dhace inan gumeed noqday gun wax lagu siiyo gacan gumeed wax lagu siiyo qaatow dayuus baad noqonaysaa wasiir ciise noqon maysa dayuuskii ciise ee wasiirka habaan ku odhanayna magacaas ayaan kugu yeedhayna abtiyaasheena saasoo kale ayaan leehay ha qaadanina waayo maamul baan samaysanaynaa Awdal State leedahay ciise iyo samaroon leeyihiin oo waxay doonaan wixii ay meesha jiraba ay kala qaataan ma samaysanaynaa haddii ay waxaa doonaysaan ay weydaan marka ugu horeysa waxaan isku tagaynaa jigjiga amba diridhaba amba Addis Ababa meesha inagu doono oo ugaashadeenniba labadii way joogaan waa noo diyaar halkaasaan maamul ku samaysanaynaa inagu aan leenahay u malayn maayo SNM inay nagu soo duusho reerkanan gacalkana inay nagu soo duulaan u malayn maayo haba yaraatee ma dhici karayso wax ka dhici kara maaha marka maamul inagu aan leenahay aan samaysanaynaa haddii ay suuro geli weydo wixii aan doonayna haddaan ka weyno inaan gumeed noqoni mayno house nigger isna noqon maayo soo kuwa daarooda meesha lagaga guuray meesha lagaga tegay ee meesha si weli sii dhex fadhiya ma noqon karayno waxaas waxaan noqon karna maaha sharafteenna iyo karaamadeenna iyo dadnimadeenna iyo masiirkeenna iyo sharafta dadkeenna ayaa ka weyn inaan kuwa la mid noqono taasi waa taas madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle iyo madaxweyne Xasan Sheekh waad salaamaya guushii waad gaadheen bilaan waad damayseen Muuse Qamuunyo waad rideen dhulka ayaad digteen ciidda ayaad afka u darteen maamulkiisii wuu dhacay waa la haligay wuxuu adoonay sharci ahayn oo qabyaalad iyo musuqmaasuq iyo iyo nin jeclaysi iyo hanjabaad iyo dulmi ku dhisan yahay waa la haligaa
maamulkii waa la halaag baa ku dhacay waa halaag waxaa ku dhacay laakiin maxaa idin yaalla plan B baa idin taalla labadiinaba madaxweyne xasan sheekh waxaa ku taalla inaad warqad u qorto Interpolka oo la soo qabto ninkani dhul Soomaaliyeed buu waan iibinaya oo markhaatiyadeedii la haya waa traitor wadanka Soomaaliyeed ga mas'uulka dhul Soomaaliyeed buu baayacay oo waan iibinaya markhaatiyaashina way joogan traitor weeyaan Interpolka warqad u qor intaas qaaful ya kaaga faran in la soo qabto Ismaaciil Umar Geelle booliiskiisa Interpol waxay capacity u leeyihiin inay soo qabtaan musaqamuyo oo maxkamad soo taagan bay u leeyihiin xaq waayo waa international law sharciga Interpolka way saxeen booliiskiina way leeyihiin awoodiina way leeyihiin diyaaradihii iyo wixii lagu soo qabanay way leeyihiin Djibouti waa inay soo qabataa musaqamuyo oo lagu soo qabtaa dhulkii uu iibiyay nin af kasta wadan kasta luqad kasta oo lagu qoro sharcigaasi waxay sheegaysaa ninkaasi inuu yahay traitorna sharcigiisu waxa weeyaan icdaam in la dilo weeyaan waa in la soo qabto waa in Milosevic loo geeyo halkan waa in la keeno waa in soo qabataan waa gool siyaasadeed waa rigoore waxa idin hor joogaa ma jirto magac iyo martabad baad ku helaysaa Ismaaciil Umar Geelle iyo Xasan Sheekhow inaad soo qabataan ninkii daalimka ahaa ee Soomaali laayay ummadii la ascaaro ninkii baabiyay maanta maalintii la soo qaban lahaa weeye wixiisiina waa la hayaa waa accountable waxa la socday nin wasiir markuu saxiixayo Samaroon ragii dhulka u mitrinayay nin Samaroon ku jiro la kadhatiya ayaa ku jiray ninka Mareykanka jooga isaga laftiisu waa accountable markuu isagu iibsaday dhulkeena ninkii mitrinayay kaasa kamid ahaa nin kale Samaroon ninkii ag joogay baa markii dhulka saxiixay Abdi Qani wasiir buu ahaa waa inaan yar Abdi Qani ina kayga uu ka yar yahay aniga aan dhalay uu diiday inuu qaato waxaas waa kii diiday maanta daraganimo iyo karaamad iyo sharaf buu leeyahay waayo wuxuu diiday wixii uu walaaqanay dhulkan inay dad leeyihiin buu ogaa inuu boob ku hayo ninkan ogaa ayuu arkay uu diiday marka waxa leedinka rabaa sharaf inaad maanta yeelataan awdal state dooni qura wada saaranahay wax walba ha qaadanina war wax walba ha qaadanina mar un wax diida oo ma yiraahdo ha yeelina waxyaalaha qaarkood sharaftiin iyo karaamadin waxay ku dhimayso iska ilaaliya waxa kale oo rabay waxaan arkay oday la wareysto Ciise odaygaasi waxaad u malaynaysaa inuu Ismaaciil Umar Geelle ku hinaasay horta dumarku markay hinaasaan waa la yaqaano waxa la yiraahdaa hinaasatir baa la siiyaa laakiin nin hinaasay ma garanayo waxa lagu daweeyo odaygaasi haddii shiina laga wareysto codanaya Ismaaciil Umar Geelle sidii soo kale Ismaaciil Umar Geelle inankiisa soo kale Ismaaciil Umar Geelle inantiisa soo kale waxaas uu ka sheekeeya odayga Bashiir baa la yiraahdaa waa sheekh Bashiir baa la yiraahdaa inuu macallin quraan ahaa baan u malaynaya waxaas uu ka sheekeeya wax kale kama hadlo saddex masalo afar masalo kitaaban akhriyay waxaas uu sheega intaaba Ismaaciil baa ku yaala odaygaas Ismaaciil baa ku waash waxaan dhageystay odaygaasi oo leh anigu waxaan qaatay baasaboor Kanadiyaan oo ciyaalkeyguna waa Kanadiyaan aniguna Kanadiyaan baan hayso walaana waan dhageystay okay haddaad Kanadiyaan tahay maxaa ka galay adiga Djibouti ishtakhalak inta fi Djibouti ومالك جيبوتي انت adiga maxaa ka galay mar haddaad Kanadiyaan tahay maxaa ka galay Djibouti waxa kale oo dhageystay isagoo leh Ciise waxay doonayaan inaan la ooyo way ooyayaan Ciise waxay ka xanaaqayaan lacag aan qaaraan bixiye qaaraankii meeshii Hargeysa gubatay baan laba jeer bixiyay walaal marka wuxuu iska dhaadhicinayay isaaq habar washan maxay qolooyinkan isaaq SNMtu iska dhaadhicinayay halkaana waan ku bixiyay lacagti halkana waan ku bixinaya Ciisehuna way ka hinaaseen ma jeclo waxay doonayaan Ciise inaan la ooyo sidoo kale war Ciise ooyo ma jirto adiguna kula ooyo ma jirto taaba yaraatay laakiin aniga waxa ay muuqata inaad Ismaaciil Umar Geelle ku hinaasto hinaasuhuna dumarku qurux badan yahay ragga kuma qurux badan habeen dharaar 24/7 meel kastood ka hadlayso Ismaaciil baa sidana iyo Ismaaciil baa sidana iyo Ismaaciil baa dictator anaga ogol baa inuu dictator ahaa anaga la sii joog goolka maanta hadduu dhaliyo aqal dahab u dhisayna oo musabixi soo qabto oo maxkamad soo taago ninkii dalkayga wariibi oo soo qabto anaga ogol baa inuu sii joog mucaaradka aad sheeganaysaan aan baadigi kuwa kale ba qeyr ka sheegtaan mucaaradka Djibouti waxa haysta dad aan destructive معارض وكونستراكتيف وحبور بس معارضكم دولة أيون توصية لكن معارض قدافت يوميل بيالان
iyo meel islaani ku xaartay soo sawiraan waddankay soo sawiraan ceebtiisa iyo dibadda la yimaadaan intaasay macaarid ku yihiin macaaridnimadii waxay noqotay in la sheego meeshii xun Jabuuti ee gidaafad la soo sawiro taasaa macaaridnimo ma waddani matid waddani ninka macaaridku waa inuu waddani yahay dad jacayl ciid jacayl calan jacayl waa in lagaa helaa waa inaad dalkaaga jeceshahay markaad waddani tahay intaa waa in lagaa helaa laakiin haddaad dabada dalka soo sawirto dalka ma jeclid cadow baad ku tahay dalka haddaad dabadii soo sawirto wejigiisa soo sawir quruxda badan dalkaaga taasaa lagaa rabaa waxaan kaloo rabay su-aal kale inaan ka jawaabo su-aashaas waxay idhahdeen reerka dhan maxaad ugu tilmaantay bidaar horta bidaartu dadka way gashaa xanuun ma leh lamana dareemo laakiin waxba kaaga tagi mayso idiin bay kaa dhigtaa mana dareemaysid markaa reerkaas annaga markii hore wuxuu ohan jiray waa cadow kula walaala laakiin iminka waxaan gartay inay yihiin bidaar oon la fahmayn meel walbana ay galeen meel walbaba way galeen waynana murxiyeen wax noo yaalaana ma jiro maalmahana Ismaaciil Margelle kuwa sheemba Ismaaciil Margelle Somaliland madax kama ah madax buu idinka idin yahay dhul buu ku leeyahay Somaliland dhulka iyagiiba Somaliland ku leeyahay hadduu doono xaq buu leeyahay inuu ka hadlo laakiin waad ku waalateen qolooyin maqoryo sidata dabado baxay oo dawladda Jabuuti iyo Ismaaciil Margelle uu ka hadlay waa ridiculous wax alla waxay macnaheedu sameynaysaa ma jirto waa adigu ma dooran adiga madaxweyne kuba Ismaaciil Margelle anagu noo yahay anagu waan jecelahay inuu sii joogaa rabnaa waliba laakiin waad ku waalateen Ismaaciil Margelle in kuma waala kartaa sababtoo ah waad ogtiin wixii Musabbixi ku dhacay 17 oday oo Ciise loo soo diray oo la soo xulay baa loo soo diray يا الله صدري إنه لكلمه وديدي وحي قاعد ودكتور درب هذا كل هذا ضفان بوكعي مركا don't play with a fire Ismaaciil Margelle marka wax ka sheegaysan dabbaad ku dhex ciyaaraysan waad gubanaysan iska ilaaw Ismaaciil Margelle ninka madaxweynaha ma waa dab waxaad ku ciyaaraysan aad baan idin salaamaya Soomaali meel kasta dunida joogtaanba abtiyaashay iyo tolkayba waan la hadlay ugaaskiini iyo kaayagiiba waxay joogaan Ethiopia halkaas isku tagaynaa dawlad samaysanayna haddii sida aan doonayna ka weyno Soomaaliland aad baa idin salaamaya